السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نقيات يوتيوب سلامي عشان كنا حكو سابسن يحي قيبتي ساقالات كمتاشي ستوديو 8 كاسان ugu hadli doono course effects kaasaan uga hadli doono oo ah in muuskaaga aad u samaysid color waxa laga yaabaa ardayda markay ka daawanayso videogaaga ama dadka ka faa'iideysan doono insha Allah bina youtube-kaaga muhiimaddu waxay tahay markii aad muuskaaga dhaqaajinaysid waa inuu lahaadaa color iyo waxa aad u jeceshahay inaad u samaysid waxaan kala saaraynaa videoga course effects oo qaadan kara iyo videoga qaadan karin markaan bilowno qaybtii sagaalaad Camtasia Studio 8. Welcome to my YouTube channel. marka Camtasia Studio ay soo furo waxaad ogaanaysaa waxaan ka hadlaynaa waa maanta course effects ayaan ka hadlaynaa sida u sameysay videogaaga import videogaaga soo qaado sida aan u sheegnay dragging oo ku samayn kartaa si aad u soo gelisid ama waxaad samaynaysaa drag inta ku samaysid ama right click ayaa leedahay add to timeline waa dhigata si automatic ah marka labada video ka hadlayna labadan video waa marka videoga u horeysa waxa ku qoran u jeedaa labada markaan hor u keeno waxa ku qoran AVI ayaa ku qoran kana waxa ku qoran track oo ah Camtasia Studio 8 video ayada u qaas ah aad ku duubtay effects marka recording ka sameynaysid ayaad kala saaraysaa sida hore aan qaybta recording-ka markaan tago setting-ka oo jeedaa u xiran tahay sadarteed waxa ogaanaysaa gudaha marka u tagtid ayaa kala ogaanaysaa videoyada hore cashada ayaa ku soo sheegay qadaa hore u la socotay marka course-ga soo dooratid videogan effect muujeedid hore ka soo isticmaalay markaan kan ka doorto waxaad ogaanaysaa videoga in oo ii dhahayo videogan ma aqbalayo waxaad ogaanaysaa videoga aad u sameysay AVI aad u sameysay ma qaadanayo calaamadan laakiin kan waa diiday kan marka delete ayaan ku sameynaynaa kan markaan rabtid inaad samaysid selectka aad samaysid haddaa selecti sameyn kuma doorno inaad selectiga calaamadda saaratid kadibna muuska colorkii aad rabtid ayaa u sameynaysaa markii hadda muuska dhaqaajiyo aan ka dhigo highlight oo jeedaa calaamadda highlight-ka soo kortay muuska markii uu play dhaho meeshuu dhaqaaqaba muuska wuu la dhaqaaqaba u jeedaa haddii aad aragtid muuskan calaamadan haddii aad aragtid in la arkin laakiin kalka bis la arko waxaa leedahay mouse course invisible macnaha ka dhig in la muuqanin laakiin marka aragtid calaamada socoto laakiin muuska lama arkayo haddii ajaga ku celiyo aad timaadid meesha inaan marka left click markii la dhahayo calaamadu ku bixinayo guduudkaas ayuu ku bixinaa haddii aad rabtidna web macnaha uu jiidmaa noocaas aad tijaabinaysid kanna sidoo kale waaye markii kan waa left kanna waa right ka nooca aad rabtid ayaad u sameynaysaa marka inta samaysid waxa lagaga baahan yahay haddii aad rabtid inaad dhahdid markastan xoogaa dhaqaaqaba ana colorkan raba inaan ka bedelo waxaa leedahay add animation ayaa leedahay kadibna markuu inta aad rabtid tago muuskan waxaa marka intaas u rabaa inuu yellow isticmaalo ama jaalaha kadibna add aan leeyahay kadib markaas colorkii aan rabay ayaan tagaa inaan ka bedelo markaan tago colorka okay waxaa soo furinaysaa high effectiga ayaa soo furinaysaa kadibna waxaad ka dooranaysaa colorkii aad u ratay rosa ayaan ku doortay ma ujeedaa markii inta soo istaago markaan play dhaho fiiri videoga markii calaamadaas uu gaaro waxaad ogaanaysaa colorka si automatic markii la gaaro animationka meeshaas waa uu isbedela animation macnaheedu waxay tahay in aad xukuntid macnaha qaabka u dhaqaaqayo intii frame aad u ratid oo ujeedaa uu isbedelay marka waxaad ogaanaysaa effectiga colorka nooca arta ugu bedeli kartaa haddii colorka intaan kaliya inuu effect intaan diyaarsanta u malinin moo haddaa ku dhifatid waxaad ogaanaysaa colorkii aad ratay ayaad diyaarinaysaa ama haddii aad taqaanid isku darka colorka nooca artid ayaa samaysan kartaa kadibna okay ayaa leedahay haddii aad isku dayda colorka korshaha size-kiisa waa ujeedaa markaa muuska weynaysid wuxuu ku noqonaa muuska inuu aad u weynaysid saas darteed marka wuxuu ku muuqanaysaa muuskaaga inuu noqdo mid aad u weyn haddana mid aad u yar haddii aad size-ka imaadid size-ka waxaa ka bedeli kartaa in aad korshaha calaamadiisa weynaysid muuska colorkiisa dhinac size ka dhigtid opacity-gana waa khafiif ka dhig haddii opacity waa boqol kale waa full markaana khafiif ka dhig waa marka laakiin waxaa fiican inaad meel wanaagsan ama 50% ama 56 minta adiga markaas ku qanacsan tahay sababtoo waxa dul istaagaysid waa inay ka muuqdo
softigan haddii aad rabtay inaad ka dhigtid si fiican khafiif ayaad ka dhigaysaa haddii hard ka dhigtidna waad ujeedaa waxaa kusoo haray dadka badana muuska inta badan markaad dhehaysid sizekiisa left click right click ka maamuli kuwan laakiin markaad muuska isticmaalaysid inuu clicking sameeyo inta ayaad amaanaysaa mouse click ayaa leedahay kadibna sidoo kale inta markaa meel kasta aad muuska click ku siisid si automatic ah wuxuu sameeyaa cod inuu sameeyo markii aad tijaabisid waxaad ogaanaysaa meel kasta u dhaqaaqdid click aad ku siisid ba click oo inta badan aragtay video qaar inta ayaad u fududsiinaysaa haddii aad rabin nan ayaa ka dhigaysaa haddii aad rabtidna codadkan ayaa tijaabinaysaa marka muhiimaddu waxay tahay in aad videogaaga haddii aad u rabtid inaad u samaysid waa inaad videogaaga ka dhigin AVI waa inaad ku duubin haddii aad ku duubtidna karashaha kuma shaqeynayo sidaan hore usoo sheegay waxaa lagaaga baahan yahay marka in videogaaga aad ka dhigtid sida Camtasia Studio caadi loogu duubo marka insha Allah bidnaakin waxaan umaleynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan wixii su'aalana fadlan comment ku soo qor insha Allah bidnaakin videoga haddaa ka heshayna fadlan like sii sababtoo videoga waxaa laga yaabaa qofka sameeyey markii like ay siisay ama mahadsantahay waxaa laga yaabaa qofkii inuu dareemo aqoonta uu leeyahay sababtoo shukriga waxay ka mid tahay شيء إسلام كفر ما لا يشكر الناس لا يشكر الله معناه مهمة حتى الناس عاونه علمنا كلا فائدنا ما أنت هذا علم تقننا فوراك هذا فائدة سنة أدنى أجر حسنة يا كالسة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا